بدل ما نشرب السجن اللي يرد يقوياك ويلي كبدبان مدحدي مسؤولين تقولها شوكتا سياسيا مشرحة الحلوان كل شرحينا بكرة بالفتحات لما أنتوا عن واحد وأربعين لما أنتوا على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت تحاول بيعاوي تاني حفلة متكسر قالوا لو إمام مضيو لو تاجر لو نسي صاحب بكرة بالفتحات ninka runtii ku horbilay midda baan soo wada shaqeynay oo qof fiican baan u leeyahay qofkan waxa ka warrama marka doonayso qofka inaad ka warrado waxa tabad ma la gashay jidii ma la cuntay jid ma la martay inta maana la galay ku horbilay sax marka waxaan marxaad ugu furayaa runtii nin hal doora oo qiimo badan oo shacabka reer iyo gobolka Togdheer inuu matalo u qalmay yahay ayaa runtii marag ugu furayaa oo wax ka tahay إنما معنا أنا قبل شيء سنة من مغاهير وهو ترى بوان هي واحد ويدي صومالو حاجة نبض محبوك يا ميسان مركا دور الرماد بيشبه كمل هاي من كحاجة نبض وحياة صومالو كده إذا حكمل إنه ديق ليه هاي إنه دوت ليه هاي إنه دنيمة ليه هاي إنه دول ليه هاي الرماد نوعاس سيفوي كان فرق بدنا تريو كوا كلام وحكوا أكيد صاحب بيبوه بله وحنو كده يلوني تابله كنتي هاي أنا قويان هالدوره ديجان كين المثل كرا runtii maanta marka intaas oo dhalinyaro qiimaha boqolay waxa loo muujinaysaa munaasabada qiimaha leh waxa soo dad isugu yimaadeen ee lagu taageeray haldoorka dhalinyarada burcoodan ka soo qayb galay waxay muujinaysaa in la wada jecel yahay la wada rabo meel markiisa la wada taageersan yahay waxa kale oo qiimaha boqol muujinaya dadka xafladiisa qaban qaadanay gudoomiye qaban qaadanay hadii aqoonyahankii ka hadlayay ninka xiriyaha cajiibka ah xafladiisa cajiib isku dubaridayay dadkaasina waxay tusaale u yihiin cid uu yahay abukar marka abukar way bogaadinayna guur bay u rajaynaynaa insha Allah inuu xildhibaan golaha deegaanka kadibna maayir manina kadibna maayir rabay kusay marka laga yimaado ka dhalinyaro ahaan runtii dalku wuxuu u baahan yahay dhalinyaradu waa lafdabarta ummadda waa meesha ugu muhiimsan waa cid isbeddelka samayn karta waa cid runtii ummaddaas wanaageeda iyo horumarkeeda iyo qiimaheeda laga qiimeyn kara waa dhalinyarada maadaama dhalinyarada nahay fursad badan baynu haysanaa xukuumadda maanta joogta madaxweyne musabbix hogaaminayaana diyaar bay tahay qayb way ka siiso dhalinyarada talada dalka inay fursado shaqo abuurto inay waxyaabo badan kala la qaban marka dhalinyarahan inaan dhulka isbigine oo weligeed oday daba taagnayn inay 40 iyo 80 ilaa 60 dawladda ku soo jiray nin walba meesha kugu habboon abu halkan waxaan xaado ka day inay ka dhowday baasho qof waliba haweenan iyo inaan bahalkii aad u aragtay inay xaaga dhowda baasho ka gaarayso ها ترى ما هذا كيف